gabdhaha la jecel yahay waxa ay tahay gabdhaha aan wax baran sababta ku sheega Soomaalida waxyaabo fara badan ka dambeeyana jirto ninka Soomaaliga wuxuu jecel yahay qadarin wuxuu jecel yahay laga dambeeyo wuxuu jecel yahay in ra'yi ahaan laga ra'yi qaato ma fahantaday inta markii meel isla dhigo gabdhaheeni wax bartay waxa la filayay horta sideedaba wax barashadu waa soofaha aqliga qofka markuu aqli qabo midida hadana la soofay wax ma jirtaa qalinka markii la jaro oo razor lagu jaro buu wax qora sababta looga cararaya waxay tahay in kuwii wax bartay qadarintii rag ay u lahaayeen inay ka qaaday rol aan kooda ahayn yani shaqo aan tooda ahayn dhax gasho marka qaarkood ay damcayaan kaalintii gabadha wax baratay ixtiraamka gabadha guriga joogta laga helo lagama helo masal ahaan markay rabtay tage ma su'aali kartid mar walba inay kugu dhigtay gareyso amarkeeda lahaatay jeceshahay ragga marka waa la bartay waxa la ogaaday waxay dhahan Soomaali waxay dhahan reer ay naag u talisay waa reer dhaxala waana aragtaa u malayna wiliga arag fiiri raxma gurigeeda ka imid raxma gurigeeda u jooga carruurtaas badan ay dhumaan u dhowdahay waa fikrad aan qabo inta soo arkay sideedaba ilaahay quraanka wuxuu ku yiri ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i meesha hadii lagu soo gal maxaa ka sameeyay marka waxa marka aanay adiga ilaahay yaano waxa leedahay gabadha wax baratay wixii loogu talagalay ragga inay qabtaan ayada isdoor bidaysaa inay qabto exactly wixii loogu talagalay inay ku kordhiso maxaa yeelay aqoonta waxay kordhisaa garaadka waa xushmo iyo qadarin iyo kala dambeyn iyo in la iswar maqlo ana dhahay mid ku taag waa marka yaa talina marka ana saanaan dhahay 5 saac ay maana in 6 saac ay maana ay goor oo santaay moosashine waxaan rabaa hadalka ka dhawaajisay inay wax ka tiraado Saadiya meelan ka bilaabo ma aqaan horta arintan uu qabo ani waan ka duwanahay fikradaydu way ka duwan tahay anigu waxaan aaminsanahay gabadha wax baratay inay ka sii fiicanta naagta aan waxba baranin naag aan waxba baranin waa jaahil horta qodobada uu ka dhawaajiyo moosashiina ee uu leeyahay hadii gabadha wax barato guri ma joogayso yani doorkii ragga ay isdoor bidaysaa mana hoggaansamayso ay intaas oo wuxuu ka dhawaajiyo qodob intaas oo qodob maxaa ka dhahaysaa aniga midda u hore arintan uu leeyahay guriga ma joogaysa mar walba waa runtiis way dhici kartaa laakiin aan ku sheego guriga joogitaankiisa iyo mas'uuliyadda ku saaran waa laba nooc oo kala duwan laba shay oo kala duwan waaye anigu guriga habeen iyo dharaar waan ku joogi karaa laakiin mas'uuliyadayda inaan ka soo bixinaa ay dhici kartaa ani waajibka i saaran waxa waaye caruurta inaan tarbiyad ma aragtaa si sharaf leh ugu soo tarbiyeeyo xagga waxbarashadooda aan ilaaliyo adigana kala dambeynta aad sheegaysana qofka shakhsiga ku xiran tahay ma ahane waxbarashada kuma xirno